وإسكا هورماد علوس أو دحية حقوق كترسان دولة يمن عالمكو aqoonsan هي ميليشيادكا kooxda xuutiyiinta ee Iran ay taageerto waana mid kamid ah dagaaladii ugu cuslaa ee ka dhaca dalka Yemen gaar ahaan gobolka Saliida caanku ah ee Ma'rib la waraadiyo xagga amaanka ayaana dagaalkan ku tilmaamay kii ugu weynaa uguna darnaa ee ay xuutiyiinta ay ku soo qaadaan gobolkan Ma'rib iyadoona kooxda xuutiyiinta la sheegay in dagaalkan u adeegsadeen dhammaan noocyada culus ee hubka oo ay ku jiraan madaafiicda goobta diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo gantaalada balaastika oo la sheegay in halabeen oo kaliya gobolkan ay ku rideen ilaa iyo 10 gantaal ugu yaraan 90 dagaalyahan oo ka tirsan labada dhinac ayaa la dilay Sabtidii sida ay ilo xooggaala ay u sheegeen wakaalada wararka ee AFP Iran ayaa ku taageertay xuutiyiinta dagaalka ay kula jiraan dawladda Yemen iyagoo kooxda siisa hub sida diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo gantaalada inta badan loo adeegsado in lagu bartilmaameedsado goobaha ay ku sugan yihiin isbahaysiga hogaaminaya Sacuudiga gobolkan dagaalka foolka uu ka socda ayaa magaaladii ugu dambeysay ee ay ku xoogay yihiin xoogga dawladda taageersan waana mid kamid ah kaabayaasha ugu weyn ee shidaalka ee Yemen gobolkan Ma'rib ayaa sidoo kale hooy waa 100,000 oo barakacyaal ah oo hore uga soo cararay dagaalada ka socda dalkaasi waxaana tani mar kale ka dhigaysaa in dadka rayidka ay ka qaxaan gobolkan oo markii hore ay nabadgelyo soo doonteen saraakiisha maxalliga iyo ururada aan dawliga ahayn ayaa ka digay in kororka barakac Yemen uu keeni doono masiibo bini'aadanimo oo aad u daran tan iyo inqilaabkii xuutiyiinta bishii Sebtembar 2014 gobolka Ma'rib wuxuu hooy u noqday in ka badan 2 milyan oo barakacyaal ah oo ka soo cararay naxariis darrada iyo caburinta maleeshiyaadka xuutiyiinta iyagoo raadinaya badbaado ayaa lagu yiri bayaan ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ee Yemen dhinaca kale ergeyga qaramada midoobay ee Yemen Martin Griffiths ayaa cambaaray weerarka xuutiyiinta ee gobolka Ma'rib wuxuuna ku baaqay wada hadal colaadda Yemen ayaa waji adag yeelatay iyadoo xuutiyiintana duulaankii ugu dambeeyay ay ku qaadeen gobolka Ma'rib waxaan marar badan cambaaraynay tan iyo horaantii sanadkii hore markii howlgalkan weerarka uu bilowday waxaan ku celin doonaa wicitaankeenna weerarka Ma'rib ha joogsado waxa uu halis gelinayaa malaayiin rayid ah ayuu yiri ergeyga qaramada midoobay u qaabilsan dalka Yemen عبد الفتاح مع النور سومالي كيبل مقدشو